waan islaamay meel walba joogteen kusoo dhawaadashaa koleyto horta waan islaamaya meel walba joogteen midda koowaad midda labaad maanta waxay soo fadhiisiyey farxadda aan aada iyo aad aan u faraxsanahay maadaama ninkii bafuunkii Donald Trump la yiraahday uu ku guuldareystay magacadii Mareykanka doorashada run ahaantii farxaddan farxad ka weyn ma lahan ninkaasu boqol sano hadda soo dhaaftay ayuu wuxuu rabay gadaal inuu u celiyo dadkii waxaa hanjabaad weyn ku jirtay nolosheena oo siiba haddana haddii LGBT la yiraahdo xornimada hadda aan haysana ayaa waxaa ku jirtay hadal baa ku jiray hadduu markaa uu sii wada lahaa wuxuu gedin lahaa democracy wax la yiraahdo oo dhan ayuu gedin lahaa ninka asaga marka alaa kulli xaal horta taas waan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama uu ku guuldareystay koleyto keligay yaalahay meeshan haddii aan asxaab ku aqaano halkan waxaan dhigi lahaa xaflad weyn aan dhigi lahaa champagne-na waa la cabi lahaa balse maxaa hadal lagugu daalin de markaa saas laaligeed waa inaan anaka weli aan rajadeena aan wadanaa oo rajadeena si aan u lahayn aan usii lahaanaa weligaaga nabadda daacadnimada iyo ficnaashada ayaa guulaysata oo xumaatada ka guulaysata marka haddii aan nahay dadka faraxsan dad waxaan nahay oo anaka aada iyo aad inuu loo dhibaateeyey mar badan aan ka hadlay dhowr jeer aan ka hadlay markaa dhibaatadan loo soo geystay la-aldigeed baa waxaan noqonay dad aanan jecleen inaan dhibaato dad u geysano oo afkaan ka gaabsanaa waxaan nolosheen umaan gaar ka wadanaa teenaan ku mashquulsannahay shaqa haddii la yidhaahdo shaqadeenaan ku mashquulshannahay haddii la yidhaahdo magacaadii reer haddaan leenahay nin hadduu ina qabo nimankeenaan ku mashquulsanahay haddii ay dumar wada jooga ay tahayna si taas ayaan ku mashquulsannahay marka cadowtinimo iyo mindi la isgeliyo mindi gadaal la iska geliyo iyo waxyaalahaas oo dhan badanaa nalagama yaqaano annaga dad waxaan iska nahay nabad jecel sababta tahay nabadda waxay tahay aan ogsoonnahay dad meeshay marayaanba jidka waddaday marayaanba la caynaya miseba dhagax lagu tuurayo miseba gadaal laga xamanayo oo nafsadooda mar walba uu ku fikiraayo inay halis ku jirto goorma anaka toorina la gelin doonaa iyo goorma la dil doonaa iyo haddii aan banaanka soo dhigno inaan nahay dadka faraxsan mana la toogan doonaa iyo dad sidaas ku jira ayaana oo maskaxdana laga gumaystay koleyto waad aragteen haddii aad doorashada Mareykanka aad la socotiin waad aragteen 70 milyan oo dad ayaa aaminsan inaysan dad xor ahaanin oo madowga Mareykanka ku nool inay la toogto oo jidka la iskaga toogto ayagoonan waxba geysanin aaminsan Soomaalida Mareykanka degan oo dhan inay la xaabiyo oo meeshay ka imaadeen ay ku noqdaan aaminsan ee magacaadii wadankii cadaankii u badnaa waa lagala wareegayaa oo dad midab dugan ayaa kala wareegaysa aaminsan inay qori nin walba uu qori haysto iska jidka adigoo male iska kaa tooganay
marka run ahaantii balse 74 adiga ilaa 5 ku dhawaad milyan ayaa ka soo horjeeda marka taas ayada waxay ku tusinaysaa rajada aan leenahay Soomaali hadana inkastoo hadda majority-ga inta u badan Soomaalida ay leeyihiin qaniisiin ma laga yaabo inaan aqbalno misagoo كليبان هوري صدوان كده هاي جد كأيام كسر جلنا وادرياني صاحب dad baa soo riyooday aniga hadda xornimadan hod aan ku noolaa halkan oo ninkan doon aan guursan karo haddii aan doonan aan guursanaynin xornimadaad qof baa u soo fikiray 100 sano ka hore marka taas adiga maxaa hadalba nigu daalin oo hadba luuq aan ay gelinaya waxaan maanta aan aad iyo aad u faraxsanahay inay Mareykanka ay ku guuleysteen xornimada ay ku guuleysatay doorashada ay ku guuleysatay ay bini'aadanimada ay ku guuleysatay oo dadka bini'aadanimada yaqaan oo dadka naxariista leh ay ka badan yihiin dadka kale marka Soomaaliya ay koleeto waligeed intaas oo sanaha horta dhibaato ku soo jirnay dadka samaanta jecel nabadda jecel naxariista leh inay ka badan yihiin dadka xumaatada iyo cadowtinimada jecel misaba qurfataalka jecel inay dadka samaanta jecel ka badan yihiin taas ayay inay xasuusinaysaa Mareykanka electionkeeda doorashadeeda كلت وأنا يحسي وأنا إسلامي ولا العيال ملو بجوتين يا هذه قف هذا البدن ميه هذا قف هذا البدن ميه قف سكعب كابن وجورجيس إيش خذوا ده حسانة يا سنة أنا أقول كي كسر بحن أن هالخف لحظة أيام يلي كرا sababta waan afka markaan doonto oo YouTube ka doonto waxay tahay aniga inaan hadal badan aan jeclaan balse yar baa soo wacay oo igu xiran oo dhaynay hadii ay noqoto taa salaan inaan soo salaanto oo dhahdo waan salaamaya intaas waxa inagu filan tahay fadlan anaga aamusna amal balse maanta waxaan u soo fadhiistay waxay tahay farxadaan ku faraxsanahay inuu Donald Trump ninka adduunka ugu doqonsanaa oo madaxtooyada loo doortay uguna cadowsanaa inay magacaada you fired asaga in you fired la dhaho ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taasaan farxadaan rabay inaan la soo wadaago waan islaamay walaalayaal ishaa ila sii caba ilaa ay waqti kala hadaan